Luis Diaz oo si degdeg ah u bedelay go'aankiisa kadib wicitaan uu ka helay Kompany. Tababaraha Bayern Munich Vincent Kompany ayaa la sheegay inuu telefoon kala xiriiray garabka Liverpool ee Luis Diaz, kaas oo si cad u ogolaaday inuu u wareego kooxda Jarmalka, isla markaana u sheegay Liverpool inuu doonayo inuu ka tago. Bayern ayaa horay u dirtay dalab dhan 67.5 milyan oo euro oo u dhiganta 58.6 milyan oo pound, balse Liverpool ayaa si degdeg ah u diiday, iyadoo ciyaaryahanka ku qiimeynaysa in ka badan 100 milyan oo euro, waxayna ku adkaysatay inuusan suuqa yaalin waqtigan. Wararka ka imaanaya gudaha Bayern ayaa sheegaya in saraakiil sare oo kooxda ah ay taageersan yihiin heshiiskan, iyagoo u arka Diaz inuu yahay ciyaaryahan isla markiiba tayada kooxda kor u qaadi kara ee aan ahayn maalgashi mustaqbalka fog. Agaasimaha ciyaaraha Bayern ayaa haatan diyaarinaya dalab kale oo weyn, iyadoo la rumaysan yahay in kaliya dalab ka badan 80 milyan uu qancin karo Liverpool. Wadahadallada labada kooxood ayaa weli socda. Bayern waxay rumaysan tahay in rabitaanka ciyaaryahanka iyo dalabkooda cusub ay keeni karaan in heshiisku hirgalo maalmaha soo socda. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii bandhigga ciyaaraha ee aan ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo suuqa kala iibsiga. Aragtidaadana qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.